dadka caawa la laayay waxaa ku jirta hooyo umul ah iyo sidoo kale cunugii ay umushay oo jira 4 cisho waxaana sidoo kale isla goobtaasi lagu laayay haween iyo caruur kale waxaase muhiim ah qeybaha kala duwan ee bulshada in arrintan ay ku baxaan isla markaana wax laga qabto waana dhacdo aad u xanuun badan oo taabanaysa qof walba oo damiir leh dhammaantiinba muuqaalka sii shargareeya kulantay wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka leegareeya cid walba muuqaalka leegareysa waxaan allah subxaanahu wa tacaala aan kaga baryaynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu sahlaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaadda uu barakeeya inta awlaaddoonkaan ilaahay awlaad baari ah ha siiyo inta gurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabtaa leegareeyana waxaan rabbi subxaanahu wa tacaala aan kaga baryaynaa maal adduunyo oo aysan filaynin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyaa dembigood iyo dembiga waalidkoodan eebba u dhaafaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku casuumaa jannatul firdaws alaclaa xaasidka waxaan leenahay wa min sharri xaasidin idaa xasad alxaasid laa yaflax biidni illaahi alkariim waxaa kuu dambeynaya hoog iyo khasaaro oo rabbi subxaanahu wa tacaala aan kaaga baryaynaa inta xanuunsanna rabbi subxaanahu wa tacaala xanuunkaa ka dulqaado ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtana rabbi subxaanahu wa tacaala gargaarkiisa iyo nasrigiisa eebba weyna ha siiyo xilligan waxaa la marayaa 2020 welise waxaa dadka qaarkiis loo dilayaa aana qabiil ayadoona dadka la dilaya ay iskugu jiraan haween caruur macallimiin iyo weliba qaybo kale oo bulshada indha u ah dad aan waxba galabsanin oo caruur saqiira ay ku jiraan waana ayaan darro weyn oo ka jirta meelo ka mid ah Soomaaliya deegaanada hoos yimaada gobolka Shabeellada Dhexe waxaa caawa lagu dilay qoysas caruur iyo haween u badan waxaana qoysaskan dilay Maleeshiya beeleed aana qabiil ayay u dileen caruur iyo weliba haween aan waxba galabsanin waxaana dadka la dilay ku jira cunug dhalan 4 cisho iyo sidoo kale hooyadii dhashay umul ah taasoo ayaan darro weyn ah isla markaana qof walba oo Soomaali ah oo damiir leh uu ka damqanayo waxaa dad badan ay isweydiinayaan muxuu galabsaday cunuga 4 cisho dhalan iyo weliba hooyada umushay waxaana dhacdadan ee ka dhacday deegaan hoos yimaada degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana sidoo kale isla goobtaasi lagu dilay dad kale oo ay ku jiraan caruur iyo haween waxaana sidoo kale dadka la dilay ku jira hooyo kale oo aan waxba galabsanin isla markaana goobta ku sugneed ayadoona dadka halkaasi wax ku naqday haweenkii caruurta la soo sheegayo in tiradooda ay ka badan tahay ilaa 5 qofood ilaahay naxariistii jannaha siiye hooyada umushaheed ayaa la sheegay in sidoo kale marka laga soo tago in uu la dhintay cunugii saqiirka ah ee 4 cisho jiray in sidoo kale goobtaasi uu ku dhintay wiil kale oo ay dhashay oo da'diisa lagu sheegay 3 sano jir waxaana sidoo kale isla goobtaasi ku dhaawacmay wiil kale oo 5 sano jir ah iyo hooyadii dhashay kuwaas oo la soo sheegay in xaaladooda xilligan ay tahay mid khatar ah isla deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Dhexe waxaa dhawaan lagu dilay in ka badan 5 macallin ama ku dhawaad 5 macallin kuwaas oo ah macallimiin subax ku jiray kadib markii maleeshiyaad ay dul yimaadeen rasaasna ay la dhaceen macallimiinta waxaana la sheegay in arrintaasi ay daba socoto arrinta caawa lagu laayay caruurta iyo weliba haweenka ku sugnaa deegaan hoos yimaada degmada Warshiiq waxaana sidoo kale la tilmaamay dadka islaynaya iska dilaya caruurta haweenka iyo macallimiinta dugsiyada quraanka inay yihiin dad ehela oo walaalo ah kuwaas oo ka soo jeeda beesha Mudlood gaar ahaan beesha Abgaal waxaase muhiim ah cid walbo wax garad ah iyo weliba cid walbo awood leh ee ku bixi karta colaadda ka jirta gobolka Shabeellada Dhexe caawa maraysa in cunug 4 cisho jira iyo sidoo kale cunug 3 sano jir ah in lagu dilay iyo hooyadii dhashay waxaa muhiim ah in lagu baxo dhammaantiinba muuqaalka sii shargareeya si bulshada iyo weliba inta awoodda leh arrintaasi wax ka qaban karta muuqaalka uu gaaro